ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo xalay kulan la qaatay saxaafadda maxalliga ee wadanka Itoobiya ayaa ka warbixiyay arrimo dhowr ah oo hadda ka jira dalka Itoobiya. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in hubka laga dhigi doono ururada ay dhawaan gogasha u fidisay dawladda Itoobiya isla markaana laanu qaabilsan arrintaasi la yagleeli doono. Waxa uu ugu baaqay ururadaasi inay ku dagaalamaan qalinka iyo fikradahooda ay qabaan. mar wax laga weydiiyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya mustaqbalka madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu sheegay in arrintaas ay u taalo sharciga iyo cadaaladda dalka Itoobiya የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ከማስፋት አንፃር ግን ደካማ ነበር። በውጭ ምንዛሪ ልናገኝ የምንፈልገውን የሀብት ልክ በእጅጉ ያነሰ ብቻ ነው የምናመነጨው። በዚህ ምክንያት ፍላጎትና አቅርቦት ባለመመጣጠኑ waxaan ka warsuganaa waxay cadaaladu ka tiraahdo iyo waxa uu mudan doono Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas'uuliyiintii dhibaatada geystay ayuu yiri. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sidoo kale sheegay in luqadaha maxalliga laga dhigi karo luqadaha ugu waaweyn ee Itoobiya looga hadlo si loo helo jiil afaf badan barta. sidoo kale waxa wax laga weydiiyay ra'iisul wasaaraha hadal baryahan bay la isla dhaxmarayay oo ahaa inuu xanuunsaday markii uu joogay Mareykanka waxaanu ku jawaabay aniga ma baahi dadka isticmaala dawooyinka mana iibsada dawada waxaanan aaminsanahay jimicsiga iyo isboortiga. ugu dambeyntiina waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha inay dhibaato ka jirto xadadka maamulada dalka Itoobiya isla markaana guddi uu hogaamiyo ra'iisul wasaare ku xigeenku uu xil saaray ka shaqeynta dejinta xaaladaha ammaanka ee deegaanada xadka.